habeen wanaagsan mar kale dadkana dhageysanayo madaxweynaha jamhuuriyadda koonfurta Suudaan Salva Kiir Mayardit ayaa waxa uu tagay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum halkaasi oo wada hadal uu kula yeelan doono madaxweynaha dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir labada dhinac ayaa gorfeyn doona arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in xal loo helo mushkiladda dhoofinta shidaalka ammaanka iyo qaybo badan oo iskaashiga labada dal ee dariska ah ka dhaxeeya madaxweyne Salva Kiir waxa socdaalkiisa rasmiga ah ku welinaya xubno ka tirsan golahiisa wasiirada iyo ganacsato maxamed colaad xasan oo haatanba barnaamijkan igu welinaya ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Fiidow Maxamuud Fiidow oo ah suxufi degan magaalada Khartoum ee dalka Suudaan waxaa jirtay khilaafaad dhanka xuduudaha ku saleysan iyo dadkan mucaaradka ah oo labadan isdhaafsanayeen waxaa jiray inay Suudaan bishii la soo dhaafay ku dhawaaqday in la joojiyo amaba ay hakisay amaba ay laaltay heshiiskii la gashay Suudaan bishii Maaris sanadkan ay gabi ahaanba oo ay tiri ma ka noqonay arrimahaasi khilaafaadkaasi ayaa ilaahay mashaa madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir Mayardit maanta ayuu saaka soo degay saacadu markay ahayd 12 subaxnimo waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Suudaan iyo diblomaasiyiin iyo wasaaradda dowladda Suudaan ka tirsan Mayardit dhankiisa waxaa la socday wasiiro heer sare ah sida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha amniga wasiirka ganacsiga wasiirka naftada iyo warshadaha iyo xubno kale oo dhamaantood u socday inay heshiiska sameeyaan saacado kadib waxay qajirtay in kulan isla markiiba ay albaabadu xiran yihiin ay qaateen madaxweynaha dowladda Suudaan Umar Hassan al-Bashir iyo madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir Mayardit kadib kulamadaas albaabadu xirnaa haddana waxaa jira kulan albaabadu u furnaayeen oo labada dhanba ay si toos yimaadeen oo hoolka weyn ee lagu magacaabo Friendship Hall oo magaalada Khartoum ku yaala halkaas oo labada dhanba ay khudbado ka jeediyeen Fiidow labada madaxweyne waxaad ii sheegtay inay wada kulmeen oo ay kulan albaabadu xirnaayeen iyo mid furan ba la yeeshay waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga wada hadla maxaa kamid ahaa arrinta aad u weyn ee qorshaha uu madaxweynaha dowladdan koonfurta Suudaan u yimid waxaa kamid ah sidii khilaafaadkan arrimaha ajay loo xalin lahaa sidoo kale in dowladda Suudaan oo muddo hadda ay ka harsaneed kaliya xilligii ay digniinta ugu dartay inay joojin doonto 2 cisho kaliya waxaa jirtay in khilaafaadka arrimaha markaan ay arrimaha muhiim rabeen waxa weeyaan waa tubooyinka saliidda ceyriin shidaalka laga sameeyo qaada isla markaana mara gudaha dalkan Suudaan oo ay markaasna ku rido dhankan degada weyn dalkan Suudaan ay ku leedahay magaalada Port Sudan gobolka Bahr al-Ahmar ama badda cas halkaasi ay kaga darto arrimahaas ku jirto kale waxa ku jira amniga sidii xuduudahan loo sameeyo xuduudo kale waxa kale oo ay ka wada hadleen oo kale labada madaxweyne sidii laftirkeeda loo sameeyo lahaa kan hoose sida taageerida dhan walba lagu eedeeyay in mucaaradka ay isku taageerayaan oo kale in iska joojiyo iyo sidii amniga labada ka dhan iska kaashan lahaayeen intaba waa markii labaad oo booqasho ku yimaado Salva Kiir Khartoum tan iyo markii ay koonfurta Suudaan xornimada qaadatay marka dadka shacabka caadiga ee waqooyiga Suudaan ku nool markaad fiiriso sidee looga arkay imaanshiisa siyaabo badan loo arkay waa October 2011 iyadoo muddo 6 bilood kaliya laga joogo xilligii ay koonfurta Suudaan xornimada qaadatay ayay ahayd markuu halkan yimid oo Suudaan oo isagoo madaxweynaha dowladda koonfurta Suudaan ah aragtiisa maanta aad bay ugu duwaneed waxaa jirto haddii la joojiyo shidaalkan tubooyinka dowladda Suudaan oo ay boqolkiiba 25 ay koonfurta Suudaan inta badan u badan tahay haddii ay go'do kale inay dhaqaale aad u fara badan u geey karayso laftirkeedu in dowladda Suudaan ay ku tiirsan tahay dhankaasi iyo shidaalka waxyaaba ka soo gala waxay u arkaan in sidoo kale khilaafaadka xuduudda labada dowladood waa laba dowladood oo af ah oo luqadda ku wada hadlaan oo luqadda carabiga haddana wada jiritaan iyo joogtaan ka wada dhexeeyay sidoo kale arrinta qadiyada ugu weyn ee aafka dadku hayaan siyaasiyiinta markaad la kulantay ku sheegayaan waxa weeyaan arrinta abiyey oo ay degan yihiin labada dhan cadaanka iyo afrikaanka ee koonfurta Suudaan iyo degan yihiin caraba oo la isku haysto arrinta laftirkeeda sidee yaa aragtida laga qaadaa dadka koonfurta laga qaadaa marka kuwa kale ma jirtaa rajo laga qabo in kulankooda uu yareeyo xiisadihii dhawaa ee labada dhinac ka dhaxeeyay sida gobolka Abiye oo kale haddii ay arrintani ay suuro gasho in ay xalliyo ama madaxweynaha safarkiisa waa halkan ku yimid Salva Kiir magaalada Khartoum ay noqon karto rajo weyn oo ay khilaafaad fara badan ay kaga gudbaan sababta labada dhan waxa ognahay in dagaal uusan wax labada u keenaynin waxaa jirto diblomaasiyiin labada dhanba u hadlay diblomaasiyad u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan
iyo diblomaasiya u hadlay isagana wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfurta suudaan labada waxay sheegeen ay niyad wanaagna ka muujiyeen in ay 90% ay ku la oran karo in maanta ay ka gudbi karaan qadiyadii la isku haystay. kaasi waxa uu ahaa suxufi ku sugan magaalada Khartoum ee dalkaasi Suudaan waxaana la yiraahdaa Fiidow Maxamuud Fiidow wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan. وليلك